habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeyay ee guud ahaan Soomaaliya qodobadan caawidan hayana wax kamida dagaalka Puntland iyo Daesh oo meel xasaasi ah maraya iyo sidoo kale mid kamid ah saraakiishii ugu waaweyneed ee kooxda Daesh oo ay dhawaan gacanta ku dhigtay Puntland ayaa xalay ku dhintay mid kamid ah isbitaalada magaalada Boosaaso falcelino badan ayaa ka dhashay oo dhanka bulshada ah waan eegi doonaa iyo sidoo kale Asad Cusmaan Diyaano taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo xalay si adag u hadlay isagana waa eegi doonaa qodobadaas oo faahfaahsan daawada inta kula wadaagin wax ka codsanayna YouTube-ka ku soo biirto subscribe dhahda muuqaalka laga saarto gambarelkana furto si ay ku soo garaaniin warbixinada maalinlaha halkan ku soo gudbino haddii aan ku bilaabo 28 saac la soo dhaafay waxa dagaal xoogan Buraac Almiskaad ku dhexmaraya ciidamada difaaca Puntland iyo kooxda Daesh waxaana kooxda la soo gaarsiiyay jabkii ugu weynaa waxaana laga dilay xubno badan oo ka tirsan kooxda Daesh dagaalka ayaa waxa uu ka socdaa toga miraale halkaas oo ay kooxdu ka xiratay difaac adag waxaana la isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa fudud ee garabka lagu qaado maadaama halkaasi aan la gali karin ama aysan gali karin baabuurta hubka xambaarta goobaha hadda lagu dagaalamayo ayay kooxda Daesh isku dayaysaa in ay ku dagaalanto maadaama halkaasi ka dhow yihiin saldhigyadii ugu waaweynaa oo ay u yaalaan hubka agabka caafimaadka iyo sidoo kalena ay halkaasi ku sugan yihiin saraakiishii ugu waaweynaa kooxda Daesh dhanka kale madaxweynaha dowladda Puntland Sida Abdullaahi Deni ayaa maanta kulan xasaasi ah la qaatay saraakiisha hogaaminaysay howlgalka Hilaac oo ku jira wajigiisii saddexaad madaxweynaha ayaa saraakiisha ku amaanay sida wanaagsan oo ay isku duubnida iyo dowladnimada leh oo ay maamulayaan dagaalka waxa uuna saraakiisha uga tacsiyay ciidamadii halkaasi uga dhintay muddadii uu dagaalku socday iyo kuwii uga dhaawacmay oo Ilaahay uga baryay inuu u boogadhayo madaxweynaha ayaa saraakiisha ku amaanay sida wanaagsan oo isku duubnida iyo dowladnimada leh oo ay u maamulayaan dagaalkaas waxa uuna saraakiisha uga tacsiyay ciidamadii halkaas uga dhintay muddadii uu dagaalku socday iyo kuwa uga dhaawacmay oo Ilaahay uga baryay in ay Ilaahay u boogadhayo sidoo kale madaxweynaha ayaa kula dardaarmay saraakiisha inay si laba jibaaraan dagaalka kooxda Daesh ka dhanka ah waxa uuna ku bogaadiyay inay isku duubnaadaan saraakiisha iyo sidoo kale ciidamaduba dhanka kale waxa maanta la shaaciyay inuu xalay dhintay Cabdiraxmaan Shirwac Lahoor oo kamid ahaa saraakiisha ugu waaweyn ee kooxda Daesh kaas oo dhawaan isku soo dhiibay ciidamada difaaca Puntland ee dagaalka kula jira kooxaha Daesh Cabdiraxmaan ayaa kooxda Daesh u qaabilsanaa dilalka qorsheysan ee madax jabiska ah kuwaas oo loo geysan jiray haldoorka Puntland si gaar ah ganacsatada iyo siyaasiyiinta reer Puntland ee ku dhaqan magaalada Boosaaso warbaahinta Puntland ayaa maanta baahisay inuu dhintay Cabdiraxmaan Lahoor kaas oo ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen bulshada reer Puntland qaar badan oo kamid ah ayaa sheegay in Cabdiraxmaan la dilay kadib markii laga helay xogtii looga baahnaa kuwa kale ayaa ku doodaya in Cabdiraxmaan xog uu ka hayay dalka Imaaraadka Carabta oo taa kula siin jiray kooxda Daesh si aan sirtaas u fakana Puntland uu ka codsaday Imaaraadku inay disho si aysan sirtaas u fakan waa sida ay ku doodayaan dad badan oo kamid ah bulshada reer Puntland balse dowladda Puntland ayaa wali faahfaahin rasmi ah ka bixin dhimashada Cabdiraxmaan Lahoor dhanka kale xildhibaan Cabdinuur Sanyare oo kamid ah siyaasiyiinta reer Puntland ee mucaaradka ku ah madaxweyne Deni ayaa sheegay in dilka xalay la dilay Lahoor uu ka mid yahay toogashadii la toogtay Siciid Yuusuf ninkii dilay madaxweynihii hore ee dalka Cabdirashiid Cali Sharmaarke xildhibaanka ayaa hadalkiisa laga dhansanayay in ninkani uu ahaa muhiim dilkiisuna yahay mid culus balse dowladda Puntland ayaa laga warsugayaa waxa ay ka tiraahdo dilka Cabdiraxmaan Lahoor dhanka kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo guuto Asad Cusmaan Diyaano oo magaalada Muqdisho ka amba bixiyay guutooyin ka tirsan booliska Soomaaliyeed ayaa si adag ula dardaarmay waxa uuna faray inay muujiyaan inay dalka iyagu leeyihiin kooxda Al-Shabaabna ay ku soo duushay dalkooda loona baahan yahay inay ka sifeeyaan dhanka kale taliyaha waxa uu sheegay inay shabaab yihiin wiilal yar yar oo qoryo ah ka ah wata cid ka dambeysana aysan jirin balse ciidamada Soomaaliyeed ay haystaan dad iyo dowlad garab taagan iyo sidoo kale bulsho iyaduna garab taagan ciidamadaas waxay u baahdaan ka caawinayaan taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in la rabo in kooxda Al-Shabaab la soo afjaro inta lagu guda jiro sanadkan waxa uuna sheegay in hadda dagaalka shabaab ay u midoobeen ciidamada dowladda shacabka iyo sidoo kale madaxdii u sareysay oo ka mid yahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta gaaray furimaha hore oo ka socdo dagaalka halka
kaasoo la filayo inuu ku sugnaado maalmaha soo socda sidoo kale Turkiga ayaa maanta diyaarado caalami ah ugu deeqay Soomaaliya kuwaas oo qayb ka noqon doona dagaalka lagula jiro kooxaha Daesh oo ka socda koonfurta Soomaaliya daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkeena caawa hadii aad halkan nala soo gaartay markale wax ka codsanaya in YouTube-ka ku soo biirto subscribe dhahdo muuqaalkan la iga saarto gambalelkana furto si ay ku soo gaaraan warbixinada maalinlaha ay halkan ku soo gudbino